يا أم ما شكل السماء hooyaday waxay leedahay hal il waana dhibsaday waayo waxaan u arkaa ceeb waxay u shaqayn jirtay si adag si ay u soo saarto nolol maalmeedka qoyskeena maalin maalmaha ka mid ah ayay hooyaday igu soo booqatay dugsigayga dhexe si ay ii soo salaanto aad baan u ceebsaday maatinkeeda oo waxaan is idhi maxay sidaan u samaysay waan inkiray oo waan ka tegey anigoo ku eegay eegmo naxariis daran maalinkii xigay mid ka mid a ardayda aan iskuulka wada dhiganno ayaa igu yidhi uf hooyadaa waxay leedahay hal il miyaadan ceebsanayn waxaan doonay inaan isduugo sidoo kale waxaan jeclaystay in hooyaday ay ka fogaato noloshayda maalinkaas si foolka fool ah ayaan u soo hor joogsaday hooyaday anigoo ku idhi haddii waxa keliya oo aad doonaysaa ay yihiin inaad iga farxiso maxaad isaga dhiman weyday laakiin hooyaday wax jawaaba ima aysan siin uma aanan joojin inaan ka fekero si kiba allaha ka dhigee waxyaabihii aan idhi sababtoo ah waan caraysnaa waxaan u baahday inaan ka haajiro gurigeen sida u dhaqsaha badan una macquulsan waxaan ku dadaalay waxbarashadii waxaana helay fursad aan ku aado Germany si aan waxbarashadeeda uga sii wato halkaas kadib waan guursaday oo waxaan gatay guri waxaan sidoo kale dhalay wiil waxaana ahaa mid ku faraxsan noloshiisa marnaba maanan xidhiidhin hooyaday maalin maalmaha ka mid a ayay timi si ay ii soo booqato ima aysan arkin muddo sannado ah sidoo kale horay il uma aysan saarin ilmaha ay ayayada u tahay markay soo istaagtay albaabka waxaa ka furay wiilkayga wuuna ka cabsaday wuxuuna dib ugu soo cararay guriga anigu horay uguma aanan sheegin arrimaheeda waxaan imi iriddii guriga ee ay taagneed hooyaday markii aan iridda ka furay waxaan ku idhi aniga oo ku qaylinaya sideed u iman kartaa gurigayga oo weliba uga cabsiin kartaa carruurtayda ka bax gurigayga ka tag gurigayga hooyaday waxay si degan iigu jawaabtay oo ay tidhi sida tan waan ka xumahay waxaa laga yaabaa inaan ku imi adrees qaldan wayna i weydaaratay yacni way iska tagtay maalin maalmaha ka mid a warqad ayaa iiga timi Bosnia waxaana ii soo diray dariskaygii waxaa ku qornaa warqadda sida tan dariskayga qaaliga ahow waxaan rajaynayaa inaad wanaagsan tahay oo aad caafimaad qabto waxaan gudanayaa waajibaadkayga oo waxaan kugu wargelinayaa in hooyadaa geeriyootay waxay ii dhiibtay warqad geerideedii ka hor adiga ayayna kuugu tala gashay haddii wax uun ku dhacaan hooyadaa inaad warqaddan akhridid anna sidaas baan kugu soo gaarsiiyey warqaddii waxaan bilaabay inaan akhriyo warqaddii wiilkayga qaaliga ahow mar walba waan kaa fikiraa waan ka xumahay inaan imid Germany oo aan ka cabsiyey carruurtaada aad baan ugu faraxsanaa markaan ku arkay wiilkaygiiow maasha allah waa wiil wanaagsan wiilkaygiiow waan ka xumahay wejigabaxnimadii aan kala joogsiga lahayn ee aad igala kulantay muddadii aad soo barbaaraysay wiilkaygiiow ma og tahay markii aad yarayd waxaad gashay shil oo waxaad ku weyday ishaadii ka hooyo ahaan waan adkaysan waayey inaan kugu eegto xaalkaas iyo adigoo ku barbaaraya hal il sidaa darteed waxaan kuu bixiyey ishaydii aad baan ugu faraxsanaa inaan arko wiilkayga kaasoo arkaya wax walba isagoo weliba isticmaalaya ishayda oo waxaan ka helayaa jacayl iyo raxmad hooyanimo
waan ku jeclahay hooyo أمشي أخاف تعثرا nebiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee wuxuu ina faray in la adeeco allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa intaa kadib wuxuu ina faray hooyada oo mar labaad wuxuu ina faray hooyada oo mar saddexaad wuxuu ina faray hooyada halka marka afraad uu inaga faray aabbaha طال الطريق وإن قصر أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر والأرض عندي يستوي منها البسائط والحفر منها